Maraykanka iyo Israa'iil labada midna ma rabaan inay dagaal weyn oo toos ah oo dagaal furan ah ay la galaan Iiraan. Keliyata waxay rabaan in missionkoodu uu ku koobnaado ama qorshahoodu uu ku koobnaado regime change ama bedelidda xukunkan shiicada ee Iiraan ka jira. Maxaa caddayn wax taas? Ilaa 3 maalmood ee uu dagaalku socday, Israa'iil iyo Maraykanku waxay bartilmaameedsanayeen keliyata madaxda ugu sarreysay ee dowladda oo waa kuwii dilay wadaadkii ugu sarreeyay talada dalkaas Iiraan Ayatollah Khomeini iyo sidoo kale wasiirkiisa gaashaandhigga taliyihii guud ee ciidamada militariga Iiraan. Marka missionkoodu ilaa imika wuxuu ku kooban yahay keliyata ugaarsiga madaxda sare ee dowladda oo weli kumaysan dhawaaqin inay dagaal furan oo toos ah ay la gelayaan Iiraan. Haddii ay Maraykanku uu ku dhawaaqo dagaal furan oo uu la gelaya Iiraan, wuxuu bartilmaameysan doonaa kaabayaasha waaweyn ee militariga Iiraan, tusaale ahaan warshadaha hubka soo saara, bakhaarada waaweyn ee ay yaalaan gantaalada halista ah ee Iiraan haysato iyo droniska isqarxiya ay Iiraan haysato. Kaabayaasha militariga ayuu weerari doonaa oo uu burburin doonaa. Kumana dhaca Maraykanku inuu sidaas sameeyo. Maraykanku haddii uu bartilmaameedsado kaabayaasha militariga ee dalka Iiraan waxay samayn doontaa taas mid lamid ah, waxayna bartilmaameysan doontaa kaabayaasha militariga ee Israa'iil oo ay ka mid tahay xarumaha nukliyeerka ee Israa'iil. Haddii ay taasi dhacdo oo ay Iiraan gantaalo la gaadho xarumaha nukliyeerka ee Israa'iil, waxay noqon doontaa mid khatarteeda leh, saameynteeduna waxay gaadhi doontaa dhammaan gobolka oo dhan si isku mid ah ay u saameyn doontaa. Israa'iilna nukliyeerka ay u samaysatay ay isku difaacdo wuxuu noqon doonaa mid iyada dibta ugu weyn gaarsiiya. Marka Maraykankii laba daran mid doora haysata. Wuu ku fashilmay horta inuu fuliyo missionkiisii ahaa regime change ama inuu bedelo xukunka shiicada ee ka talinaya dalka Iiraan, sababtoo ah marka uu mid dilo kii bedelayay waa diyaar. Wayna adag tahay in uu Maraykanku ku guuleysto dagaal noocaas oo kale ah. Sidoo kale way adag tahay inuu Maraykanku ku dhawaaqo dagaal furan oo khatartiisa wadan hore idinka soo sheegay. Maraykanka jidka keliya ee markaa imika u banaani waxa weeye inuu wada hadal la furo Iiraan oo uu ku qanciyo in Iiraanna ay dagaalka joojiso, iyagana uu ka joojin doono dagaalka. Waa xalka keliya ee Maraykanka uu haysto si uu u badbaadiyo sharafkiisa uu ku lahaa adduunka. Haddii kale oo taasi ay dhici weydo, Maraykanku isagoo ku khasban ayuu gacmaha taagi doonaa oo is dhiibi doonaa.